السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسبوعاً وحوي مقالة بوصاصة لدهي وحلقها لي بالكان بالوارك. بالكان سنتو جدان ورادار وي وإسرائيل أما إسرائيل باكينان ما إسرائيل باسكاله وماش كان سدان مركا لما هو لكن سوح أنت لو جيدو حوي بالكان بالكين مركا واحد لسكر هي معها ميديها ودن با حقيقينيا مركا سنتو جدان ميديها أو لوكالكا أرنتان حقيقينيا سوى جدان هذا نسوا كلا ميديا أو أجنبي قليل سوا كلا أينا أرنتو حقيقينيا marka wakaas qofba mas'uul ka qaada bahalkan oo Twitter soo dhigay marka bahalkan waa raadaar weeye oo loogu talagalay in lagu fiiriyo kantaalada la soo tuuro meesha soo marayaan iyo diyaaradaha hawada ku jira meelaha marayaan waa loogu talagalay bas wax kale loogu talagalay marka hadaa u fiirsataan kalarka marsan kalar cagaar mugdi ba marsan marka kalarkaas waxa lagu yaqaanaa in oo Israa'iiliyiinta isticmaalaan marka dawladda Israa'iil ciidankooda gaadiidada leeyihiin inta ku jiraan kalarkaas kala baamarsan marka balkan oo egtahay in oo meesha ayaga kansadeen oo ayaga leeyihiin oo meesha laga abaabulayo in weerar ay ka qaadaan Israa'iiliyiinta oo Xuutiyiinta halkaas laga weeraro saas way ogtahay adarka inta ku jiraan waxa kalar cagaaran baamarsan marka kalarkaas waxa weeye Israa'iil baa laga isticmaalaa marka imaaraadka ay laftigooda gaadiid waa leeyihiin oo dagaalka ah kalarkan baa lagu yaqaanaa marsada kalarkan ciido soo jidaan marka kalaradan bay isticmaalaan oo creamka ah haddana ayaga raadaaro way isticmaalaan oo way leeyihiin marka noocan bay isticmaalaan oo Mareykanka ay ka sogataan marka kalarkan u fiirsada isla kalarkii ciido ay ka baamarsan marka wakaas imaaraadka bahalka marka raadaarkii oo la keenay Soomaaliya haduu yahay wax imaaraadku leeyihiin kalarkooda baamarsanaan la marka hadii oo kalarka cagaarka u marsan yahay oo Israa'iiliyiinta lagu yaqaano marka waxa badan yahay waxaan in Israa'iiliyiintu leeyihiin oo la rabo halkaas in dagaal laga abaabulo oo ayaga ay halkaas dagaal ka qaadaan nimankan imaaraadka iyo Israa'iiliyiinta waa wada shaqeystaan heshiis bay yihiin waliba arrimaha oo militariga waxa way iska caawiyaan oo way wada shaqeystaan wax la iska dhahay maaha media oo Israa'iil baa xaqiijinaysa soo jidaan indii muujidan marka Israa'iiliyiinta imaaraadka u jecel yihiin marka si fiican baa maanaan sababtoo wax walba ay rabaan bay u sameeyaan dadka soo qaad imaaraadka waxay u dadaalayaan Israa'iil oo gacan yar bay yihiin oo meel walba u tagayaan marka Israa'iil haday kaligood socon lahayn oo meelaha tagi lahayn oo la soo diidi lahaa laakiinse imaaraadka iska soo hormarinayaan marka wax walba ay rabeen saas ku helayaan hadda waxyaalaha ay rabaan Israa'iil waxa kamid ah inay xoog ku yeeshaan badda cas iyo badda Carabta marka arrimahaas dhan waxa weeye waxa gacan yar ah oo soo dhameynay imaaraadka hadda waa kana saantu jidaan riboorkan baa xaqiijinaya marka Israa'iil arinta ay danta ka lahayd Yemenka waa kaasa imaaraadka u soo dhameeyaan haddana danta imaaraadka Israa'iil kaliya Soomaaliya waa kana indiina ugu jeedaan imaaraadka u dhameynaya marka maanta waxa la rabaa Israa'iil inay xoog ku yeelato badda cas iyo badda Carabta waxa ordaya oo arintaas hirgelinaya waa imaaraadka way dhulka maanta Soomaaliya ka jirta weeye maanta nimanka madaxda waddanka waxa weeye waxay isku fiirnayaan jagada inta hayaan inay waddanka xaraashaan marka nin walba oo jaga loo dhiibo waxa isku fiirnayaan inuu dhulka ka kireeyo shisheeye oo rabo dagaal iyo balaayo la wareegay inuu ka kireeyo dhulka ama inay khayraad waddanka ay xaraashaan sida wax yar oo la luusha halkaas uga helaan Puntland Sweden waa kaas imaaraadkii jeebku u jiraan marka asaga waxa weeye gacan yar buu imaaraadku yahay marka siyaanada Afriis Puntland maanta imaaraadka iskale dekadii ayaga iskale wixii siyaasadda ayaga iskale oo asaga bay kontroolaan dekadii iyo airboradiina waxa way ayaga kontroola marka maanta Puntland waxa way imaaraadka iskale marka maanta haday noqoto in dagaal laga abaabulo Soomaaliya oo halkaas laga weeraro nimankan Xuutiyiinta la dhahayo arrin aad halis ah way dadka soo qaad Xuutiyiinta ma waddan ma waa jabhad way sharci celinay ma jirto dagaal soo qaadaan waxa way wax ka celinay ma jirto marka hadda waxay gantaalo soo tuuraan oo dhan waxa way sameyn karaan sababtoo sharci celinay ma jirto marka maalin walba gantaaladan bay adeegsadaan Israa'iil la dhacan fiirsada الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام.
marka nimankan xuutiyiinta la dhaho Israa'iil bay ku qabaan habeen walba meesha Israa'iil la dhaho dhagax la qaraaca hawada ka koraysa bay guduud noqoto marka dadkoodii kala carar iyo baqdin bay ku jiraan marka waa kana fiirsada wax la iska dhahay maaha in Soomaaliya laga weeraro nimankan xuutiyiinta la dhahayo waxa weeye gantaaladaas waxa weeye magaalooyin badan oo maanta Soomaaliya nabad ku seexnaya bay dambas ka dhigi doontaa intaas kaliya maaha xitaa alaabaha maanta Soomaaliya la keeno wax walba oo Soomaaliya maanta la keenayo hadday noqoto badar hadday noqoto shidaal badda la soo marsiyaa marka badda oo Yemen bay soo agmaraan marka waxaas oo dhan oo alaab wadankii la keeno baa halis geliya marka dadka waxa weeye gaajo bay halkaas u baqtinayaan marka baalkan raadaarka oo lagu arkay magaalada Boosaaso la dhahayo arrin in laga hadlo ah bay ahayd laakiinse wax joog ka dhahay ma jiro yaa reer Puntland waliba gaar ahaan nimanka oo madaxda ah arrintan way ka aamuseen wixii mucaarada waxa way arrintan way ka aamuseen wixii caqli leh arrintan way ka aamuseen wixii wadaadaha arrintan way ka aamuseen marka dadka arrintan ma ogamiya mise waxa way arrintan waa la isla ogyahay waxa weeye sir baa meesha ka socoto oo waxa way halkaas waxa weeye Israa'iil baa la heshiiyay wax la rabaa in halkaas dagaal laga qaado marka waxay tahayba ha noqotee meeshaan wax fiican kama socdaan bal waa arki doonaa arrintu meesha ku dambayso waa arrin interesting ah wey